xafladan oo ahayd mid ay soo qaban qaabiyeen maamulka macallimiinta iyo ardada iskuulka hoose dhexe sare ee degmada Jawiil ayaa ka dhacday Jawiil. xafladan oo ahayd mid lagu daahfuriyay maadada kombiyuutarka oo lagu soo kordhiyay iskuulka Jawiil ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle. ugu horreyn waxa ka hadlay maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee Jawiil al-Ustaad Muxudiin Cabdulla Cabdiraxmaan waxaana uu ka sheekayay marxaladihii kala duwanaa oo soo maray iskuulka hoose dhexe sare ee degmada Jawiil. dhammaan marti sharafka madaxda in la jooga gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabelle maama Canab wasiirka waxbarashada Hirshabelle gudoonka degmada Jawiil gudoomiyaha degmada Jawiil guddiga maaragtay waalidiinta iskuulka mucallimiinta haweenka iyo dhammaan ardada waxaan ku soo dhaweynaynaa xafladan lagu daahfurayo xarunta tababarada iyo tiknoolajiyada iskuulka Jawiil. runtii ilaahay ka sokow waxaan u mahad celinaynaa walaalaha qurba joogta iskuul u dhabar adeegay inay iskuulkan soo taakuleynayeen ilaa dhowr iyo 10 sano muddo ah haddana ugu dambeyntii ay u soo hadiyeeyeen ay u soo iibiyeen qalab kombiyuutar si ciyaalkoodii loogu hormariyo. waxaan leenahay jazaakumullahu khayran ilaahay ha idinka abaal mariyo camalka wanaagsan aad bulshadiina u haysaan. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in janno idinku bedelo ciyaalkiina iyo ubadkiina iyo hantidiinana ilaahay uu ku barakeeyo. waa walaalo qaali ah oo ka danqaday ubadkoodu in maaragtay ay wax bartaan. runtii xaruntan aan furnay ma ahan tiknoolajiyada iyo kombiyuutarka oo kaliya waa xarun tababar oo dhammaan uu furan bahweynta degmada Jawiil u furan weeyaan oo horumarka qaybahooda kala duwan aan rabno inaan ku qabanno oo macallimiinta iyo maamulka ay ku qabtaan. runtii anagu waxaan u taaganahay mar walba haddaan nahay macallimiin iyo maamul inaan hormarino ardada maaragtay degmada Jawiil aan hormarino intii aan karaankeenna ah. waxaan isku dayeynaa haddii qalabkii aan helnay inaan maaragtay insha Allah u soo jeedno habeenii maalin ayaga si aan ku hormarin lahayn nooc walba oo ay khusayso. aad ayaan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. qaar ka mid ah waalidiinta ka qayb gashay xafladda ayaa waxay kula dardaarmeen ardada inay sii wadaan dadaalkooda waxbarasho. waxaan rabaa marka dhalinyarada wax baranaysa waxa wax ku baranaysaan wax iska yimid maaha wax si roobka kale u yimid maaha wax dadaal badan juhdi la geliyay waaye wax aadin kale idinka suwaaya inaad abaalgud samaysaan waaye. maxaa meeshaan iska joogaa waxbarashaan ku jira mobile baan iska fiirsanayaa kadibna waaba igu dhantaa ma aha. waxbarashadu waxay rabtaa qofku inuu asagu wax isbaro fursadana la siiyo. fursadii baa la siiyay dhalinyarada wax baranaysa. insha Allah waxaan rajaynayaa inaad la timaadaan amaalgud. inta waxaan rabaa dhalinyaradan leeyahay maamulka degmada Jawiil waxay qabteen ilaahay ka amaal mariyo wax badan bay qabteen wax badanna way u dhiman yihiin. waxaan rabnaa in la iskaashado waqtiga maanta jira la mucaamilo waqti culus jira wax badan arada ka jira maamulkan sidoo ku soconayo oo iskoolka wax loogu baranayo oo dadku ku wada joogayo waa in la helo amni in la helo waayo. ilaahay baan weydiisanaynaa amni inuu na siiyo ilaahay baan weydiisanaynaa. tiknoolajiyada waxa leeyahay militariga iyo waxyaabaha la midka markii laga hadlo hadda heer waxa la marayaa in hub laga rido hubkaas asagoon dhacin adduunka oo dhan intuu la soo wareejiyo la soo celiyo asagoon qarxin. waxa la lahaa sanadkii hadda ugu dambeeyay 2018 bandhig ee sameeyay dawladda Ruushka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa la dhahaa waa maalinka kaliya oo farxad la ooyaalda sababtu waxay tahay aan lahay hubba waxa laga riday kombiyuutar wadanku markaas uu bandhig military ku sameeyay hubkaas wuxuu duqeyn karaa gobolka ugu dambeeyay Mareykanka ugu fog buu duqeyn karaa waa la riday waa la soo wareejiyay asagoon qarxina haddana xaruntii lagu riday lagu soo celiyay kombiyuutar baa laga hagaayay. waxaad arkaysaan diyaarado maanta waxa la leeyahay oo drones oo kombiyuutar laga hago cid bani aadan aan saarneen meeshay rabto ka kacda meeshay rabto duqeysa iska soo laabata haddana waxa la leeyahay
teknolojiyadda adduunku meel fiican buu ka gaaray horumar fiican buu ka sameeyay aqoonta in la bartane diinta islaamka waxay qabtaa ruuxu inuu ka baxo mugdiga jaahilnimada uu ka baxo oo aqoon uu yeesho oo wax barto ruux la dhalayo ma jiro asaga oo maaragtay aqoon leh oo caalim ah shaacirku wuxuu yiri ta'allam falaysa almar'u yuladu caaliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jaahilu wax baruu yiri ruux lama dhalin buu yiri asagoo cilmi leh nin ruux cilmi lehna ruux jaahila isku mid ma aha ma sinno quraanka waxa ka khayr badan hadalka ilaahay uu yiri qul hal yastawi alladheena ya'lamuna wal ladheena la ya'lamuna inma yatadhakkaru ulul albab kuwa cilmiga leh kuwa cilmiga lahayn ma eegyihiin baa lama sameeyeen cabdiqaadir cabdi cabdullaahi oo ah gudoomiyaha degmada Jawiil ayaa dhankiisa ka hadlay sidaas darteed waxaan u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad cid kasta oo suurto gelisay kana qayb qaadatay oo u horeeyaan jaaliyadaha reer Jawiil oo mar kasta u dhabar adeega in ay horumarka iyo waxbarashada caafimaadka dhan walba ahaatay ka saacidaan annagana ka maamul ahaan waxaan ballan qaadaynaa maadaama kombiyuutarradii la keenay aysan koronto lahayn wixii awoodeena ah intii laga soo gaaray inaan sameyn wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle Cabdi Macalin Maxamed ayaa sidoo kale dhankiisa ka hadlay xafladda ka dhacday Jawiil Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhammaan madaxda sharafka leh oo ay ugu horeyso gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle madaxda kale oo degmada tan gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa macallimiinta iskuulka bahda saxaafadda odayaasha dhaqanka culimada diinka iyo ururka hooyooyinka wixii halka ka jooga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ardada quruxda badan oo halka kan fadhida oo mustaqbalkooda la dhisayo dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka 114 kan idinku salaamayaa salaanka bacdi halka kan waxaa nooga muuqata qurux tiro badan iyo yididiilo ayaa nooga muuqata sida hadda uu sheegay sheekhu ummad aan aqoonta ka dhismin meel ma gaarayso ugu dambeyn waxaa ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise waxaa maanta halkaan lagu daafurayaa kombiyuutar barashada kombiyuutarku waxay anfacaysaa bahda waxbarashada iyo ubaxa soo koraya oo hortayda fadhiya anfacaysaa waxaanan jeclaan lahaa ayada nafteeda dhalinyarada cuslaatay inay ka qayb qaadato ay ayaga naftiradoodu bartaan barashada kombiyuutarka because adduunku casriyu noqdo horaa loo socday lagamana gaboobo waxbarashada lagama gaboobo Isxaaq Rashiid Maxamuud Galmudug TV Beledweyne